السلام عليكم daawadayaasheena ciyaaraha 24 subax wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha qodobadana waxaa kamid ah maxaad ka ogtahay in saxiixa cusub ee kooxda kubadda cagta Liverpool ee Takami Minamino ku dhawaaday inuu dhinto Cavani oo go'aan cusub ka gaaray mustaqbalkiisa heegan galiyay kooxaha Manchester United iyo Chelsea Timo Werner oo iska diiday kooxda Liverpool iyo saddex xidig oo sabab u ah Lionel Messi oo si kula luga hadlay guuldaradii kooxdiisa ka soo gaartay Atletico Madrid maxaase uu ka yiri mustaqbalka macalinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Valverde Jose Mourinho oo dhameystiray saxiixiisii ugu horeeyay suuqa January iyo Real Madrid iyo Atletico Madrid oo isku balansaday finalka tartanka Super Cup dal Spain qodobadaas iyo qodobo kale ay ka mid yihiin suuqa kale iibsiga waxyaabihii ugu dambeeyay ayaad ku maqli doontaa intuu barnaamijkeena hawada ku jiro waa aniga Abdulmar Cabdi وهاga dhageystayaal soo noqod wanaagsan aynu bilownay kooxda Liverpool ayaa la soo saxiixatay xidiga Takami Minamino suuqa bishan January iyadoo ka dhigtay saxiixii ugu horeeyay kooxda ee suuqa January kadib markii ay bixisay lacag 7 milyan oo euro oo ay kala soo saxiixatay kooxda kubadda cagta ee Salzburg xidiga Rejaban ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo jiitay tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp taasoo la dhacay qaab ciyaareedkiisa kulamadii uu ka hortagay wareegga gruubyada Champions League laakiin Takami Minamino ayaa soo maray waqti adag marka laga hadlayo noloshiisa caadiga ah kadib markii uu ku dhawaaday inuu dhinto bilowgii noloshiisa 17kii bishii January ayay dhacdo dabiici ah oo dhul gariir ah laguna magacaabo Great Hanshin ka dhacday dalka Japan ee Takami Minamino ka soo jeedo taasoo keentay ay ku dhintaan in ka badan 6,000 oo reer Japan ah Takami Minamino ayaa dhashay 16kii January 1995 hal maalin ka hor ay ku hoob dad badan oo reer Japan waxa uuna ku dhawaaday inuu dhacdadaasi ka mid noqdo dadka dhintay laakiin nasiib wanaag Takami Minamino ayaa ka badbaaday dhacdadaasi isagoo noloshiisa ay ku sigatay inuu geeriyoodo xidiga weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee PSG Edinson Cavani ayaa heegan galiyay kooxaha doonaya adeegiisa Cavani ayaa la xiriirinayaa kooxda Chelsea Manchester United iyo kooxda Arsenal laakiin maamulka PSG ayaa diiday inay fasaxaan xidigan reer Uruguay inta lagu guda jiro bishan January wargeyska La Tennis Sport ayaa sheegay in xidiga Edinson Cavani kooxdiisa Paris Saint-Germain uu sheegay inuu doonayo inuu isaga tago kooxda wali bishan January sidoo kale Cavani ayaa maamulka kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu ka ciyaaro horyaalka Premier League kaasoo uu arko horyaalka ugu fiican adduunka waliba uu tijaabiyo horyaalkaasi isla wargeyska ayaa sheegaya in Edinson Cavani diiday ku biiritaanka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid si uu ugu biiro horyaalka Premier League bishatan ama xagaaga dambe xidiga weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leipzig ee Timo Werner ayaa lagu soo waramayaa inuu iska diiday ku biiritaanka kooxda Liverpool isagoo aan ku biiri doonin kooxda ka ciyaarta Anfield Road ilaa ay xidigaha Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino midkood ka tago kooxda sida ay sheegayaan wararku
xidiga reer Jarmal ayaa ka mid ah xidigaha weerarka uga ciyaara kuwa ugu fiican haatan kubadda cagta, waxaana jira kooxo badan oo aad u doonaya xidigani. Weeraryahankan ayaa kooxdiisa u dhaliyay 18 gool 17 kulan uu u ciyaaray Bundesliga, isagoo kooxdiisa Leipzig ku hogaamin kara horyaalkeedii ugu horeeyay ee taariikhda kubadda cagta. Wargeyska Express ayaa fahansan in kooxaha Liverpool, Chelsea iyo Manchester United xiiso u qabaan saxiixa xidigan, kaasoo xiiseynaya inuu ka ciyaaray horyaalka Premier League. Wargeyska The Athletic ayaa dhankiisa sheegay in xidiga Werner iska diiday inuu ku biiro kooxda Liverpool inta ay joogaan xidigaha weerarka uga ciyaara kooxda ee Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Roberto Firmino oo ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda. Sababta uu u diiday ayaa la sheegay inay tahay inuu ka walwalsan yahay inuu boos joogto ah ka helo kooxda haddii uu ku soo biiro iyadoo xidigahaasi ay joogaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. xidiga kooxda kubadda cagta ee Barcelona Lionel Messi ayaa guuldaradii kooxdiisa ka soo gaartay Atletico Madrid kulankii semifinalka Super Cup-ka ku tilmaamay mid ceeb ah. Atletico Madrid ayaa 3-2 kaga badisay kooxda Barcelona, inkastoo kooxda Lionel Messi 2-1 ku hogaaminayeen 10 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta, iyadoo Atletico Madrid sidaasi ugu gudubtay finalka tartankani. Barcelona ayaa xitaa laga diiday 2 gool kadib markii VAR qabatay qaladaad haddii ay tahay mid gacan lagu taabtay iyo haddii ay tahay mid offside ah. Messi oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri, "Waa ceeb, waxa aan soo bandhignay qaab ciyaareed cajiib ah inta badan ee ciyaarta, laakiin daqiiqooyinkii ugu dambeeyay ayay ciyaarta gacmaheena ka baxeen." Messi oo ka hadlaya mustaqbalka Valverde ayaa yiri, "Waan ku kalsoonahay tababaraha, kaliya haatan waxa aan ka fikiraynaa kulamada soo socda iyo sidii aan u fiicnaan lahayn kooxdeena." Tababara Jose Mourinho iyo kooxdiisa Tottenham ayaa dhameystiray saxiixa xidigii ugu horeeyay suuqa January kadib markii ay kooxda AC Milan kala heshiiyeen saxiixa weeraryahanka reer Poland ee Christoph Piatek. Tottenham ayaa ogolaatay in xidiga Christoph Piatek ka bixiso lacag dhan 28 milyan oo euro iyo weliba 4 milyan oo gunno ah. Wargeyska Football Italia ayaa sheegay in Christoph Piatek tijaabada caafimaad u mari doono kooxda Tottenham 48 saacadood ee soo socda ka hor inta uusan si rasmi ugu biirin kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Tababara Jose Mourinho ayaa u dhaqaaqay saxiixa Christoph Piatek kadib markii la xaqiijiyay in weeraryahanka Harry Kane garoomada ka maqnaan doono muddo dhan 3 bilood kadib qalliin uu maray. Christoph Piatek oo 24 jir ah ayaa saacadaha soo socda u duuli doona London si uu u dhameystiro heshiiskiisa uu u noqon lahaa saxiixii ugu horeeyay ee tababara Jose Mourinho iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Kooxda Atletico Madrid ayaa iska xaadirisay finalka tartanka Super Cup-ka dalka Spain finalka 2020 kadib markii ay garaaceen kooxda Barcelona iyadoo balansatay kooxda ay jaarka yihiin Real Madrid. Sidaas daraadeed waxa aynu finalka Super Cup-ka dalka Spain daawan doonaa kulan derby Madrid iyadoo kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid ku kala calaf qaadi doonaan finalka Super Cup-ka dalka Spain 2020. Finalka tartanka Super Cup-ka dalka Spain qaybtiisa cusub ayaa la ciyaari doonaa markii ugu horeysay ee taariikhda oo la ciyaari doona maalin Axad ah. Kulanka oo ka dhici doona garoonka King Abdullahi Sports City Stadium. Kulankan ayaa la ciyaari doona ama la daawan doona 9 fiidnimo ee waqtiga Geeska Afrika, iyadoo ay kooxda Real Madrid iyo Atletico Madrid isaga hor imaan doonaan finalka tartankani maalin Axad. وهاجاك daawadayaal qaybaheena dambe ee barnaamijkeena ayaynu soo garnay haatanna wargeysyada iyo waxyaabaha ay qareen ee suuqa kala iibsiga. Arsenal iyo Manchester United ayaa dalabyo ku gudbiyay xidiga kooxda kubadda cagta ee PSG oo ay doonayaan weeraryahankeeda reer Uruguay ee Edinson Cavani. Chelsea ayaa bartilmaameed asaasiga ah ka dhigatay daafaca reer Faransa ee West Ham Isaac Diop oo 22 jir ah, waxayna ku doonaysaa 40 milyan oo euro. Sidoo kale Chelsea waxay 40 milyan ku soo ceshan kartaa daafacooda Nathan Ake oo 24 jir ah, laakiin waxa ka horeysa inay 23 jirka reer Denmark ee Andre Christensen ay iska diraan. Tottenham, Arsenal iyo Manchester United ayaa isku dayay inay la soo saxiixdaan daafaca dhexe
ee Barcelona Samuel Umtiti oo 26 jir ah kaasoo kooxda Barcelona ay doonayso inay iska iibiso. Tababarihii hore ee Juventus Massimiliano Allegri ayaa dib u dhigay inuu ku soo laabto tababarnimada, waxa uuna rajaynayaa inuu Manchester United ka bedelo Ole Gunnar Solskjaer. Ajax waxay isku dayaysaa inay dib u soo ceshato daafaceeda Matthias de Ligt oo amaah ay kaga qaadato kooxda kubadda cagta Juventus oo xagaagii ka iibsatay. Manchester City waxay qorsheynaysaa inay sameyso 4 ilaa 6 saxiix sanadkan. Difaaca dhexe iyo baalasha bidix oo ah meelaha uu Pep Guardiola muhiimada siinayo ayaa ah meelaha ugu badan ee xidigaha la keeni doono. Qadka dhexe reer Brazil Fernandinho oo 34 jir ah ayaa ku dhow inuu heshiis muddo kordhin ah u sameeyo kooxda Manchester City oo xagaaga dambe qalinka ugu duugo heshiis hal sano ah. Weeraryahanka Lyon Moussa Dembele oo 23 jir ah waxa daawaday shaqaale ka socda Chelsea iyo Manchester United kulankii 3-1 ay uga badiyeen Stade Brest-ka Arbacadii. Chelsea ayaa la filayaa inay iska dayso u dhaqaaqida laacibka Crystal Palace iyo xulka qaranka Ivory Coast ee Wilfried Zaha sababtoo ah Frank Lampard ayaa u arka 27 jirkani in aanu ku haboonayn kooxda Chelsea. Crystal Palace ayaa iska diiday dalab uga yimid Jarmalka ee Bayern Munich ay ku doonayso saxiixa xidiga kooxda kubadda cagta Crystal Palace ee Wilfried Zaha. Weeraryahanka Napoli iyo xulka qaranka Poland ee Arkadiusz Milik oo 24 jir ah ayaa ku soo baxay bartilmaameedka koowaad ee kooxda kubadda cagta Red Devils. Manchester United waxa kaloo la fahansan yahay inay xiiseynayso inay heshiis la gaarto daafaca dhexe Hellas Verona iyo xulka qaranka Albania ee Marash Kombola oo 19 sano jir ah. Khadka dhexe Arsenal Emil Smith Rowe oo 19 jir ah ayaa amaah ku baxaya bishan iyadoo Gunners ka shaqeynayso inay 12 ciyaartooy iska dirto suuqa January.